muddadii ka dambaysay geeridii Jamaal Khashoggi waxa aan ku xidhnaa bogga Twitter-ka ee Khadiija Jankiisa, gabadhii u doonanayd Jamaal. Ujeedkayguna waxa uu ahaa inaan la socdo xogta ay barteedaas ku baahinayso, boggaas oo geeridii jacaylkeeda awgeed dad badani ku xidhmeen. bilowgii waa ay igu yarayd aaminaad ah in Khadiiji in badan hadal hayn doonto marxuumka, waxaase aan arkay wax ka duwan taas oo aan jeclaan lahaa inay dumar badanina kaga daydaan. boost ay soo dhigto oo ducada, xuska iyo jacaylka ay Jamaal u qabtaa ka muuqan ma leh. Ogobay waxaaba ay qortay buug ku saabsan Jamaal iyo wax badan oo ay ka og tahay marxuumka, kaas oo durtaba maraya luuqaddii labaad ee lagu turjumo. intaas kadib waxaan jeclahay inaan idinla wadaago qoraallo ka mid ah boostiyada Khadiija ee dareenka badan xambaarsan, qormooyinkaas oo inta badan aniga ilmo indhahayga ka keena, sidoo kalena dareenkayga godla oo jacayl dadimo ku beera. Jamaal lama dilin, mana ma rumaysanayo in la dilay. jacaylkayaga iyo riyooyinka nolosha ee aanu naawilaynay ayaa ka keenay Washington kuna soo aadiyey Istanbul. rajadu waxay ahayd inaannu nolosha inta noo hadhay wadda qaadano, waana ta kaliftay inuu 2 Oktoobar tago safaaradda dalkiisa. maalmihii 10 ahaa ee la soo dhaafay waxay ii ahaayeen sidii 10 sano oo kale, si walba oo rajadaydu u hoosaysana waxa aan sugaya soo noqoshadiisa. kuwa i weydiinaya xaalkaygu waxa aan ahay qof ku nool geeri iyo nolol dhexdood, iyo dhul dhexdood, jannada iyo naar dhexdood. waxa aan hurdada ka soo kaca aniga oo rajo qaba, dhammaan rajooyinkaasna waan waaya kolka qoraxdu ay dhacdo. waxa aan dhintaa 1000 jeer, allow i sabirsii. jidhkaagii ayay adduunka ka qariyeen, balse qosolkaagii qurxoona weligii ruuxdayda ayuu la joogi doona gacaliye. 100 maalmood ayaa ka soo wareegay kolkaad adduunkayga ka huleeshay. 100 maalmood oo mid walbaaba igu dhaafaysay kadeed, 100 maalmood oon rajaynayo soo noqoshadaada. alle waxa aan ka baryayaa inuu naf walbaaba waxay dhigatay ka abaaliyo. erayo uma hayo aan ku cabiro dareenkayga markii aan maqlay kolkii lagu dilay in jidhkaagana la googooyey. Jamaalow, waxay iga fogeeyeen inaan meydkaaga ku tukado oo aanu kugu aasno magaaladaad jeclayd ee Madiina sidaad adiguba dardaarantay. waan jeclaa ninkaa wanaagsan, kalgacalka badan, qiimaha leh, ee deeqsigana ah. waxa uu qorayay keliya wixii uu arko inay sax yihiin, mase qorayn wixii ay rabeen kuwa awooda sheeganaya. dhalashadiisa 60 aad awgeed 13 Oktoobar waxa aan diyaarinayay kedis aan isaga ugu talogalay, waxaana aan isugu yeedhi lahaa dhammaan asxaabtayda hudheelka tee Bosporus, balse hadduu isagu iga maqan yahay, ruuxdiisa ila joogta. alle ha u naxariisto Jamaal Khashoggi, Khadiija Jankiisna ha samirsiiyo. aamiin. waxaa qoray Cabdiraxmaan Xuseen. xigasho Maxamed Soomaali.